ninkan ma doonayo in dhaqaalahan intaan la eg 215 bilyan dhibic sagaalka ah in uu $1 ka soo saaro ma rabo, balse wuxuu doonayaa isagoo lacagtiisan haysta in uu iibsado Twitterka, lacag kalena uu urursado. marka waxa uu keenay fikrad ah in uu iibiyo. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta waxaan rabaa inaan marka la wadaago ninka la yiraahdo Elon Musk. Elon Musk waa ninka ugu taajirsan caalamka hadda aynu ku noolnahay. lacagtiisa waxaa lagu qiyaasay inay gaarayso 215 bilyan dhibic sagaal. marka ninka intaan lacag la eg haysta ayaa haddana wuxuu rabaa in uu sii ballaariyo ama sii kordhiyo dakhliga oo intaan gaaraya. waxa uu doonayaa inuu kaalintan koowaad ee dunida ninka ugu lacagta badan uu ku jiro inuu ku sii jiro. sidoo kale ninkan wuxuu doonayaa in uu iibsado shirkadda la yiraahdo Twitterka oo dhaqaale fara badan uu doonayo inuu halkaasi ka soo urursado. haddaba ninkan ayaa baryihii ugu dambeeyay waxa uu waday ololo aad u ballaaran, taas uu ku doonayo inuu ku urursado lacag fara badan, taasoo uu rabo in markaasi uu ku iibsado shirkadda Twitterka. haddaba ninkan ayaa waxaa lagu leeyahay lacag gaaraysa 44 bilyan oo dollar, oo taas oo ah in uu ku iibsado shirkadda Twitter. marka si lacagtani 44 bilyan uu u soo urursado ama uu u helo isaga uu haysto dhaqaalihiisa kale, ninkan ma doonayo in dhaqaalahan intaan la eg 215 bilyan dhibic sagaalka ah in uu $1 ka soo saaro ma rabo, balse wuxuu doonayaa isagoo lacagtiisan haysta in uu iibsado Twitterka, lacag kalena uu urursado. marka waxa uu keenay fikrad ah in uu iibiyo waxa la yiraahdo barfuunkaas oo loo yaqaano Bounty Hair, oo macnaheedu tahay timaha gubtay. marka barfuunkan ayuu suuqa soo geliyay ama wax uu soo dhigay bartiisa Twitterka. kadib marka uu soo dhigay waxa iibsaday sida la qoray dad gaaraya 20 milyan, waa 20,000 oo qof. waxa iibsaday dad gaaraya 20,000 oo qof ayaa iibsaday barfuunkiisa. barfuunkana qiimahan waxa uu iibinaya ninkan Elon Musk lacag $100 ah. marka $100 lagu dhufto lacagtaas alaabtaas oo ah ama barfuunadaas gaaraya 20,000 waxa ay noqonaysaa 2 milyan oo dollar. marka muddo hal saac ka yar ayuu waxa uu ku sameeyay dhaqaale ah 2 milyan oo dollar. marka waxaan dhihi karnaa marka la eego hal abuurka ganacsiga online-ka ah waxa uu aad uga dhaqaalo badan yahay midka offline-ka ah, maadaama ninkan hal saac gudaheed uu ku sameeyay lacag gaaraysa 2 milyan oo dollar. haddii uu muddo ku sii jiro ama uu sii wado ololihiisan waxaa dhici karta in isbuuc ama bil gudaheed wax ka yar uu ku sameeyo lacagtan looga baahan yahay ee ah 44 milyan ee dollar oo uu doonayo inuu ku iibsado shirkadda Twitterka. haddaba maxaan ka baran karnaa ninkan la yiraahdo Elon Musk? waxaan ka baran karnaa in waxa la yiraahdo online-ka dhaqaale fara badan laga sameyn karo adiga oo ka sameysanayo shop ama dukaan aad ku iibiso waxyaabaha markaasi aad jeceshahay in aad iibiso, isla markaana aad suuq fara badan u raadiso. balse kahor inta aadan sameynin aragtidan hal abuurka leh ee online-ka la xiriira, waxaa u baahan tahay in aad barato oo aad wax un ka fahanto. haddaba si aad u fahanto waxa meelaha ugu muhiimsan ee aad ka heli karto aragtiyo la xiriira online-ka iyo sida looga shaqaysto, meelaha aad ka heli karto waxaa ka mid ah channelka Job Skills. oo waxaad ku qoraysaa barta YouTube-ka, waxaad ku qoraysaa wax la yiraahdo Job Skills. job skills ay ku qoraysaa, kadib waxaad subscribe saartaa channelka YouTube-ka ee Job Skills. waxaad heli doontaa fikrado hal abuur leh oo wax badan ka bedeli doona noloshaada iyo dhaqaalahaaga iyo aragtidaada horumarineed intaba. haddaba si aad uga mid noqoto, fadlan waxaad ku soo biiri kartaa linkiga hoose ee aan idiin dhigay qaybta subscription-ka maxaa la yiraahdaa muuqaalkan.
marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka wada bogateen oo aad fahanteen sheekada ku saabsan ninkan la yiraahdo Elon Musk iyo sida uu u doonayo in uu dhaqaale fara badan ka sameeyo waliba barfuunkan waxyaabaha ugu weyn ee hadda la hadalayo waxa kamid ah waxa la yiraahdo barfuunkan magaciisa waxa la yiraahdaa panty hair oo loola jeedo timo gubtay marka haddii ninkii dunida ugu taajirtana maanta barfuun laga sameeyay timaha gubtay oo dhaqaale ka sameynayo adiga oo Soomaali ah oo ku nool Afrika waxa la yiraahdaa oo laga yaabo in saddexda waqti aadan wada helin ama caqabad badan ay ka haysato xagga dhaqaalaha maxaa ku diidayo inaad abuurato ganacsi la xiriira online-ka guud ahaan muuqaalkii aan ugu talagalay inaan idinku baraarujiyo sheekadan ninka la yiraahdo Elon Musk oo ninka ugu taajirsan caalamka halkaas ayaa rabaa inaan idinku soo koobo waxaan idinkaga tegaa sida nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.